maanta oo sabtiya 6 maqribnimo ayay ku eeg tahay muddada kama dambaysta ee isdiiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya hoggaanka xisbiga kulmiye ilaa hadda jagada gudoomiyaha waxa isu soo taagay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi oo isagu shubay lacagtii laga rabay jagada gudoomiye ku-xigeenka koobaad waxa lacagta shubay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha oo xajisan doona xilkan oo hore muddo dheer u soo hayay labadan saaxiib waa Kaahin iyo Bixi oo muddo dheer rafiiq soo ahaa ayaanay jirin wili cid isu diiwaan gelisay in ay kula tartanto labada jago ee ugu sareeya xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka labaad waxa isu diiwaan geliyay siyaasiga Axmed Cabdi Dheere oo hadda haya xilkaasi qofka labaad ee hungurigu ka galay jagadaasina waa Maxamed Aadan Qabyatire wasiirkii hore ee qorsheynta oo isna maanta sheegay in laga qaban waayay lacagta diiwaangelinta Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye ayaa Hon Cable waxa uu sheegay in aanay jirin meel gudidu ay lacagta kaga qaban weyday Qabyatire diiwaangelintuna ay furan tahay ilaa 6 maqribnimo jagada gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ilaa hadda waxa isdiiwaan geliyay Xuseen Aadan Cadde oo isugu hore u hayay xilkaasi gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye ayaa jagada loolanka ugu adag uu ka taagan yahay waxaana ku tartami doona oo lacagta shubay madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici wasiirka beeraha Axmed Muumin Seed iyo waliba wasiirka ganacsiga Sacad Saajin oo la sheegay in madaxweyne Bixi uu baritaarayo siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi oo ninka sida weyn isha loogu hayo horena u shaaciyay in uu u tartamayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaan isagu ka soo xaadirin xarunta xisbiga kulmiye waxaana wararku intaasi ay ku darayaan in maalmaha soo socda warbaahinta la hadli doono iyadoo la saadaalinayo in aanu ka qayb gali doonin shirweynaha xisbiga kulmiye waraysigu hore u siiyay telefishinka Hon Cable ayaan weydiiyay bal waxa uu yeeli doono haddii uu waayo jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaanay siyaasi waay araga oo yaqaan siyaasaddu inay guul darro iyo guul libna la isma siiyo deelamadu waa ku talagalay dadka falanqeeya siyaasadda xisbiga kulmiye ayaa waxay sheegayaan in aanay wax weyn iska bedeli doonin hoggaanka hadda haya xilka xisbiga kulmiye xasan galayd wararka Hon Cable Hargeysa.